dooranayaan hoggaan cusub haddaba muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore ee xisbiga kalsoonida dadku ku qabo xisbiga oo iyana aad mas'uul u sii muuqatay runtiida oo muuqatay baa kamid ah marka xisbi shir waliba shirka kala duwan wuxuu kaga duwan yahay marka shirarkii kale sidii aan u qaban jirnay si ka horumarsan baan u qabanay Trump oo sheegay in xaaladiisa caafimaad ay soo hagaagayso xilli habeenkii labaad uu isbitaal ku jiro sare u kac dhanka sarifka dollarka oo laga soo sheegay deegaanada maamulka Puntland wiil dhalinyaro ah oo abaalmarin ku mutaystay howl uu iskii isagu xilqaamay iyo waxa kale oo aad maqli doontaan alaabtan la qaadanayo iyo qofkii ku cabayo oo marka intuu isla taagayo ama la fadhiisanayo uu hore waa dhaqaaqay ama meel gooniya loo tagayo haddaba suuqu isi fiican yahay markaas sameeyay haddana waa ku sii baraarujinaya dadka raba inay cuntada ku qaataan barsel haddaan doono barselka bilaash ma ku sii saasan u diyaarinaya waa barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee mawjadaha baraaruga oo maanta oo kale aad dhageysataan barnaamijka waxaa soo saaray Axmed Badar anigoo Fartuun Ismaaciil Axmed ayaa idin la socodsiinaya ee galab wanaagsan dhageystayaal waxaan marka hore ku bilaabaynaa warka dunida Axmed Nagaasho ayaa u diyaara mahadsanid Fartuun waxa sii xoogaystay dagaalka ku dhexmaraya dalalka Azerbaijan iyo Armenia gobolka Nagorno-Karabakh Azerbaijan ayaa ku hanjabtay inay burburin doonto xarumo military oo ku yaala gudaha Armenia taasi oo noqonaysa mid ay kaga argoosanayso gantaalo ku dhacay magaalada Ganja madaafiicda ku soo dhacday magaalada Ganja ayaa waxa ku dhintay dad rayid ah madaxda gobolka Nagorno-Karabakh ee dhanka Armenia ayaa sheegay in bartilmaameedkoodu ahaa garoon ciidamada cirku leeyihiin Elvin Bakirov oo kamid ahaa dadka ku nool magaalada Ganja ayaa arkayay markii gantaaladaasi ay ku dhacayeen magaalada waxaanu yiri gantaal ayaa soo dulmaray dhismaheena magaalada Ganja aad ayaan u walaacay oo waxa aan dadka weydiiyay waxa dhacay kadib ardadayda ayaa isoo wacay oo ii sheegay in gantaalka uu ku dhacay goob ay daris yihiin kadib waxaan maqlay in afarta gantaal mid kamida lala bartilmaameysaday deerta iskuulka nasiib wanaag cidna waxba kuma noqon madaxweyne Trump oo wali ku jira isbitaal ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay yihiin kuwa adag oo soo food saaray caafimaadkiisa Mr Trump ayaa muuqaal iska soo duubay oo soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in xaaladiisa caafimaad ay haatan soo wanaagsanaanayso waxaanu u mahad celiyay dhammaan taageerayaashiisa oo soo duceeyay afti laga qaaday dadka ku nool jasiiradda Caledonia ee ku taala koonfurta badweynta Pacific ayaa codbixiyayaashu aqlabiyad kooban ku diideen inay gobonimo ka qaataan dalka Faransiiska boqolkiiba 53 ayaa u codeeyay inay Faransiiska ka sii mid ahaadaan labada aragtiyood ayaa farqiga u dhaxeeya sidoo kale aad u yara 2 sano ka hor oo aftitan oo kala laga qaaday jasiiraddaas ayaa mustacmarad Faransiis ahayd muddo 170 sano waxa soo baxaya cadeymo dheeraad oo muujinaya in fayraska corona uu ku soo laba kaclaynayo qaaradda Yurub waxaana durbo kor u kacday tirada dadka uu ku dhacayo cudurka ee dalal dhowra Poland ayay haatan tirada dadka laga helay gaadhay 100,000 oo qof waxaana sidoo kale kordhaysa tirada dadka uu soo dhacay cudurkaasi muddadii 3 toddobaad ahayd ee u dambeeyay Jamhuuriyadda Czech ayaa iyadna sidoo kale shaacisay in 2,500 oo qof oo hor leh cudurku ku dhacay waana tiradii ugu badneyd ee dalkaasi shaaciyo tan iyo Sabtidii Ruushka ayaa sidoo kale isaguna lagu soo warramaya inuu shaaciyay 10,500 oo qof oo hor leh oo in cudurka laga helay maalin qura taasi oo noqonaysa tiradii ugu badneyd ee maalin laga helo tira inta leeg tan iyo bartamihii bishii May ugu dambeynna barasaabka gobolka Lagos ee dalka Nigeria ayaa wacad ku maray inuu talaabo ka qaadi doono qayb booliska kamid ah oo aad loo dhaleeceeyo oo lagu eedeeyay inay galaan gabadfallo xuquuqda bini'aadanka Babiche Sanyo-Olu ayaa sheegay inuu aad uga damqaday wararka tibaaxaya in ururkaasi ku kaco falal sharci darra waxaanu tibaaxay inuu talaabo degdeg ka qaadi doono maalmihii ugu dambeeyay ayaa muuqaalo dhowr oo lagu baahiyay internetku waxay muujinayeen askar la sheegay inay ka tirsan yihiin qaybta gaarka ah ee ka hortagga kooxaha maafiyada ee loo yaqaan SARS oo lacago khasab kaga qaadanayay shacabka iyo xataa iyagoo dad tooganayaba warfidiyeenku waxay sheegayaan inay baryahanba soo baxayeen baaqyo lagu doonayo in qaybta booliska la kala diro oo ay dad badan oo reer Nigeria ay u arkaan inay yihiin dambiilayaal hubaysan warkii galabnimo waa naga intaa dhageystayaal mahadsanid Axmed Nagaashe waa hagaag dhageystayaal aynu ku bilownay sida aad warkaba ku maqlayseen waxa sii xoogeysanaya dagaalka u dhaxeeya dalalka Azerbaijan iyo Armenia oo ku muransan gobolka Nagorno-Karabakh
dowladda Azerbaijan ayaa ku hanjabtay in ay burburin doonto bartilmaameedyo militari oo ku yaala gudaha dalka Armenia taasi oo ay uga argoosanayso gantaalo ku soo dhacay magaalada Ganja. Madaafiicda ku soo dhacday magaalada Ganja ayaa waxa ku dhintay dad rayid ah. wararkii ugu dambeeyay ay BBC-da ka qortay waxa isku soo dabariday Axmed Badar oo haatan stuudiyaha ugu la sugan. Axmed, maxaa ugu dambeeyay? Fortunay dagaalka u dhaxeeya Azerbaijan iyo Armenia waxa ay u muuqataa in uu sii xoogeysanayo isla markaana uu waji cusub galay. Magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Azerbaijan ee Ganja loo yaqaano ayaa waxa ku soo dhacay gantaalo ay soo rideen ciidamada dalkaasi Armenia xilli murankii u dhaxeeyay labadaasi dal ee sababay in dagaalkaasi uu dhaco una aha murankaasi Nagorno-Karabakh gobolkaasi lagu magacaabo uu markaasi sii xoogeysanayo. bayaan kooban oo soo saartay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Azerbaijan ayaa waxa lagu sheegay in ciidamada Armenia ay gantaalo la bartilmaameysadeen magaaladaasi Ganja oo ku taala galbeedka dalkaasi Azerbaijan isla markaana dhanka waqooyi uga dhow gobolka la isku haysto ee Nagorno-Karabakh. wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi oo lagu magacaabo Zakari Hasanov ayaa waxa uu sheegay in tilaabadan ay tahay mid gardarro ah isla markaana sii kordhinaysa dagaalka u dhaxeeya labada dhinac. Azerbaijan ayaa waxa ay sidoo kale sheegtay in argoosi ay sameyn doonto oo ay weerari doonto bartilmaameedyo militari oo ku yaala gudaha dalkaasi Armenia. marka waxay u muuqataa in xaaladdu ay sii xoogeysanayso. Axmedow, ma jiraan wax waan ah oo labada dal laga dhexwado tan iyo intii uu dagaalku bilaabmay Fortunay waxa socday baaqyo caalami ah oo loo jeedinayo labada dhinac. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa kamid ahaa. Mareykanku way ku baaqeen, Faransiiska ayaa sidoo kale ugu baaqay labada dhinac inay joojiyaan dagaalka isla markaana waan lagu dhameeyo muranka u dhaxeeya. toddobaadkani horaantiisii xukuumadda Armenia waxay sheegtay inay diyaar u tahay in ay wada hadallo gasho isla markaana wada hadalladaasi u garwadeen ka noqdo Faransiiska ay ka noqdaan Faransiiska iyo Ruushka iyo waliba Mareykanka si xabad joojin lagu dhawaaqo. balse Azerbaijan ayaa waxa ay sheegtay in ay iyadu markaasi aysan wada hadalladaasi imika galeen waxayna diiday in ciidamadeeda ay kala soo baxdo gobolkaasi Nagorno-Karabakh oo isagu markaasi lagu murasan yahay balse caalami ahaan loo aqoonsan yahay in uu ka tirsan yahay dalka Azerbaijan. Axmed Badar ayuu kaasi ahaa. aad buu u mahadsan yahay. wuxuu inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka u dhaxeeya dalalka Armenia iyo Azerbaijan. waa hagaag dhageystayaal. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in 5 maalmood ee la soo dhaafay cudurka COVID-19 laga helay dad ka badan 100 qof, taasoo muujinaysa in cudurku weli si baahsan ugu fidayo bulshada dhexdeeda inkastoo goboladu ay ku kala duwan yihiin tirada xanuunka laga helay. haddaba wararkii ugu dambeeyay ee cudurka COVID-19 iyo Soomaaliya waxaa inoo soo diyaariyay wariyahayaga ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan. warbixinta wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in 150 qof laga helay fayraska corona 5 maalmood ee la soo dhaafay kadib markii xanuunka laga baaray dad gaaraya 2704 qof. 150 qof ee cudurka laga helay 134 kamida waxay ku nool yihiin Puntland, taasoo ka dhigaysa gobolka ugu sarreeya tirada dadka laga helay cudurka ee ku nool gobolada kala duwan ee Soomaaliya. warbixinta wasaaradda ayaa sidoo kale lagu sheegay in 20 kamida dadka xanuunka laga helay ay ku nool yihiin Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland. gobolka Banaadir 2 qof ayaa xanuunka laga helay halka Galmudug isna laga soo wariyay halkiis 5 maalmood ee la soo dhaafay. 64 qof ayaa iyana la sheegay inay xanuunka ka bogsadeen. isla tirooyinka fayraska corona 5 maalmood ee ka horeysay 5 hadda la shaaciyay Puntland ayaa ugu sarreysay oo waxa uu cudurku ku dhacay 83 qof iyadoo tirada guud ee cudurka laga helay ay ahayd 147 qof. warbixinada wasaaradda caafimaadku waxay muujinayaan in weli cudurku ku dhex fidaya bulshada tiyo aadba mooda in dadka lagu yiri xanuunkii wuu dhammaaday iyagoo meel iska dhiga tilmaamihii caafimaadka ee la xiriiray xakamaynta faafitaanka fayraska corona. magaalooyinka waaweyn si caadi ah ayay noloshu u socotaa, mana jiro baaritaan furan oo ku aadan cudurka COVID-19 oo lagu sameeyo dadka marka laga reebo dadka safraya ama dadka isku arkay calaamadaha xanuunka oo si iskooda u tagay shaybaan iskana baaray cudurka. waa dhif iyo naadir inaad aragto qof afka iyo sanka xirtay ama iska diidaya salaanta gacan qaadka ah. waxaaba intaas sii dheer iyadoo sidii caadiga ahayd la isku dhex qaadayo kala fogaanshana warkiisa badaa. Ibraahim Maxamed Aadan, BBC, Muqdisho.
BC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa hagaag dhageystayaal xisbiga talada haya ee kulmiye ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland ayaa maanta waxa uu bilowday shirweyne ay ku soo dooranayaan hoggaan cusub. tartamayaasha waxa ku jira madaxweynaha Somaliland oo u sharaxan jagada gudoomiyenimada ee xisbigaasi.